tan iyo markii Somaliland ay jawaab ka bixisay faragelintii dawladda Soomaaliya ay ku samaysay hawada Somaliland isla markaasna xukuumadda Somaliland ay hawada ka celisay diyaarado ku socday magaalada Muqdisho iyo garoonka Aadan Cadde waxa mas'uuliyiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka shakiyeen shaqaalihii ka howlgalayay hay'adda duulimaadyada rayidka ah ee Soomaaliya iyo garoonka Aadan Cadde kuwaas oo haybahaan ka soo jeeday Somaliland saacadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxa lagu dilay Cabdinaasir Muuse Dahabli oo kamid ahaa aqoon-yahanadii hay'adda duulimaadyada rayidka Soomaaliya una qaabilsana hagista diyaaradaha isla markaasna kamid ahaa shaqaalaha Muqdisho u jooga hay'adda ee kaawe qaramada midoobay marxuunkani oo ku dhashay magaalada Hargeysa ayaa meydkiisa laga helay guri uu deganaa oo ku yaala agagaarka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho goobta lagu dilay Cabdinaasir ayaa ahayd goob ammaan ah oo garoonka ku dhegan marxuunka ayaa la sheegay in meydkiisa lagu arkay calaamadaha in la dabay ama la ciijiyay oo qoorta xadhig lagaga xidhay iyo waliba sidoo kale cadeymo kale oo cadeynaya in la dilay Cabdinaasir marxuunka ayaa aqoon sare u lahaa cilmiga hawada iyo maamulka wuxuuna wax ku soo bartay dalka Ingiriiska waxaana loo badinayaa in muranka hawada ee Muqdisho iyo Hargeysa ay naftiisa galaafatay Cabdinaasir dilkiisu waxa uu cadeyn u noqday in dawladda Soomaaliya ay ka shakiday aqoonyahan dhowra oo ka howlgala garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo hay'adda duulimaadyada rayidka ee Soomaaliya kuwaas oo looga shakiyay inay Somaliland u fududeeyeen la xiriirida diyaaradaha hawada isticmaalaya